gudoomiyaha gobolka Sanaag iyo mas'uuliyiinta xisbiga kulmiye gobolka Sanaag wuxuu qaal waayeel iyo wax garad tiro badan oo warbaahinta kula hadlay magaalada Xergaab ee xarunta gobolka Sanaag ayaa hambalyo u diray hoggaanka cusub ee dhawaan loo doortay Somaliland ee 5 sano soo socota maamuli doona mudane Muuse Biixi Cabdi iyo mudane Cabdiraxmaan Ismaaciil Saylici waxaana ay dhammaanba dadkani hoggaanka cusub alla uga bariyeen inuu xilkooda u fudaydiyo Maxamed Maxamuud Siilaanyo baan marka hore tahniyadu diraya iyo hambalyo sida qiimaha badnayd ee uu 7 sanadood iyo daadiinayay waxaan leeyahay mudane madaxweyne aad iyo aad baan kugu hambalyeynaya sidii qiimaha badnayd ee aad noo soo daadihisay waxaan hambalyo iyo bogaadin u dirayaa Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici guddiga doorashooyinka qaranka oo shaqo fiican qabtay iyo kuwa gobolka Sanaag iyo degmada Xergaababa sida fiican ay u daadihiyeen doorashadiina aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa madaxweynaha Muuse Xuseen Cabdi Xildiid aad iyo aad baan ugu hambalyeynaa waxaanu leenahay hambalyo ilaahay xilka laydin saaray ilaahay haydu ku asturo bini'aadankana waxa qura deeqdaa waxa weeye cadaalada iyo sinaanta halkay noogu qoranayno astaanta midnimada iyo cadaalada iyo sinaanta iyo horumarku waa inta xisbiga kulmiye ku ballan qaaday waxaanu kala aan arkan inaan hambalyo uga soo jeedinayaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa hambalyeynta madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi oo aynu leenahay hambalyo soo dhawow Muuse Biixi Cabdi Xildiid waxaanu leenahay madaxweyne ku-xigeenka hambalyo waxaanu leenahay madaxweyne xilka lagu idmaday oo lagu doortay adoo nin karti loo ka soo bixi karaya aanu ognahay inaad tahay allaha kuu fududeeyo waxaanu hambalyeynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland Muuse Biixi Cabdi iyo ku-xigeenkiisa oo ku guuleystay tartankii balaadnaa dhammaantood waxay ku leeyihiin hambalyo xilka aad ku guuleysatay ee ilaahay ku guuleeyana waxaan ku leenahay ilaahay kula garab galo inaan ku hambalyayno madaxweynaha cusub ee jamhuuriyadda Somaliland taladeeda ku guuleystay 2017 kii bishii 11aad iyo Cabdiraxmaan Saylici oo ku xigeenkiisa labadiinaba waxaan leenahay hambalyo halka saaka waxaan ka hambalyeynayaa madaxweynaha cusub Muuse Biixi Cabdi iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa Cabdiraxmaan Saylici oo mar labaad ku soo baxay usna tartanka aad iyo aad baan idin hambalyeynayaa waxaanu hambalyeynaynaa oo u ducaynaynaa madaxweynaha cusub ee qaranka Somaliland waxaanu leenahay Muuse Biixi Cabdi hambalyo waxaanu ka hambalyeynaynaa madaxweynaha maxaa la yiraahdaa Muuse Biixi Cabdi dhawaan madaxweynaha noqday ayaanu halkan ka hambalyeynaa dhamaantayo hambalyeeyo madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi waxaanu madaxweynaha Muuse Biixi Cabdi oo ay ku soo dhaweynayaan xilka uu maanta ku soo baxay Jaabir Saciid Ducaale Jaabir Bulshaawi wararka Kalsan TV Xergaabo